kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashayada sharafta qiimaha iyo qadarinta leh meel kasta aad dunida ka joogtaan iyo si kasta aad noo daawanaysaan ku soo dhowaada qaybtii ugu horreysay barnaamijkeena hayaan aynu ku eegi doonno xoolo dhaqatada duleedka magaalada Laascanood iyo siyaabaha ay xoolaha u dhaqdaan. Mawaashida kala duwan ee xoolaha ayaa gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn si weyn ay dadku ugu dhaqdaan iyadoo goboladan ay caan ku yihiin dhaqashada geela. Halkani waa dooxada Odogooye oo magaalada Laascanood kaga beegan dhanka qorax ku soo baxa, waxayna deris la tahay buurta weyn ee buurta Sayid Maxamed Cabdilla Xasan loogu magac daray ku taala magaalada Laascanood. Muddo 50 sano ayay deganaayeen dadkan xoolo dhaqatada ah, welina kama ay guurin halkaasi inkastoo ay ku soo mareen duruufo kala duwan oo dhanka daaqa. Odayaasha dooxadani sida weyn u degaya waxay sheegeen inay deganaayeen tan iyo Ingiriiskii ayna xoolahooda ku haysteen duleedka magaalada Laascanood, balse dhibaatada ugu daran ee ay sida weyn uga cawdaan ay tahay dadka magaalada Laascanood ku dhaqani oo iyagu dadka ugu faraha badan intay ku soo dareeraan dooxada ay guraan cawska, taasina ay geelsiiso xoolahooda inay u waayaan kayd dhanka daaqsimaadka oo dooxadani ay lahaan jirtay seerayaal tan iyo Ingiriiskii loogu sameeyey reer guraaga duleedka magaalada Laascanood. Axmed bal waxaad iga wartaa deegaanka iyo barwaaqadiisa iyo deegaanka iyo barwaaqadu ilaahay raxmad wanaagsan bay ilaahayna siiyey, laakiin waxa weeye ummad ganacsiya oo cawska iibsata, mid baabuur iyo xoolo iibsanaya ku dhoofsanaya u jaraya, iyo mid magaalada u ganacsi geysanaya oo magaalada ka ganacsanaya oo ka iibsanaya bayaambooyin iyo miishaaro ku gura. sidaa daraadeed sanad yoomay waxa nagu dhacda xoolaha iyo waa naga sigtaan waxa nagu dhacda abaar aan ilaahayna la maagin, laakiin ummad ganacsatiga oo ka qaarad ku bixsanaysa ay jarto jeexa ku badan macna waa dooxadiyo dad jaraya, dooxadiyo dad ku jarayo, dad ganacsi ha noqoto qaarad kale xoolo dhoofinaya loo jarayo, mid magaalada Laascanood oo ganacsi ahaan loo jarayo oo laga iibsanayo ha noqoto. dhibaatada noocaas aan haysa maamulkana dhowr jeer baan u tirnayo waxba nooga qaban kari waaye. anaguna shidaalkan halkan u bedegtaana halka deegaan baanu nahay ma guurta baanu nahay waka. siyaabaha geela loo dhaqdo iyo qaybaha kala duwan ee xoolaha sida geela marka hashu ka baxo ilmuhu ay dadka reer miyigu ay ugu sidkaan oo dad fara badan oo magaalooyinka ku dhaqani ayna aqoon fara badan u lahayn. xoolo dhaqashada ayaa waxay tahay mid qiimo iyo sharaf badan ku dhexle bulshada Soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa dadku waxay qiimeeyaan dhaqashada geela, taasoo gashiga iyo yaradka iyo nin kasta oo wax la moodo in kor loo qaado sharaftiisa lana qadariyo la siiyo geel. aadna dareemayso marka qofku uu kula hadlayo qiimaha uu geelu leeyahay, isagoo markasta eegaya geela markaad sheegto magaciisa, halka uu jiro iyo halka uu xirada kaga xariisan yahay. intaynu ku kulmi doona qaybta labaad ee barnaamijkani, waa aniga Cabdikariin Nolol waxaan idin leeyahay barnaamijkan la mida oo xiiso leh toddobaadka dambe haddii Rabbi raalli ka dhigo ayaynu isugu iman doonaa.